maadsantahay mudane waxaan ku dhashay magaalada Qardho 1949 kadibna waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waan dhammaystiray waxaan ku qaatay magaalada Boosaaso dugsiga hadda loo yaqaano iskuulka loo yaqaano Xaaji Mire iskuulkaasaan badda saaran ayaa ilaa dugsiga dhexe dagaaskiisa labaad ku dhammaystay kadibna aabe wuxuu ii diray xamar baan waxaan ku dhammaystay dugsigii hoose dhexe daadiya la dhihi jiray kabacdina waxaan u gudbay iskoolkii allah Soomaalidu tiraahdo allah Soomaalidu iska tiraahdo waxaa la dhihi jiray الثانوية وعلى مدرسة الثانوية العامة لكن hadda wax ku qoraa allahu akbar baa ku qoraa magaca allah loo baxday iskuul ilaah maayna waxa weeye subhanahu allah laakiin waxa la jeedaa madrasada الثانوية العامة kaasaan hadana ka baxay kadibna waxaan ku biiray ciidamada militariga 1967 waxaan ka mid ahaa laylis rakiishi loo diray dalka Russia halkaas aanu 3 sano aanu ku soo qaadnay tababarka waxaan ka soo noqonay 1967 kacaanka dhashay markaas 4 bilood jira ayaan dalka ku soo laabanay ka bacayna dee waa garan kartaa markii laylisaak soo noqdo tababarada la geliyaa tababarada Soomaaliga xarane laga bilaabo balcad meelo badan baan soo maray kadibna dee markaas ka baaxa la kala bedelay saraakiisha Amerika loo kala bedelayaa anu markii ugu horeysay shaqada waxaan lagu bedelay rag dhowr sarkaal oo kale waxaan loo bedelay madaxtooyada Soomaaliya loo bedelay waxaan ka dhigay security-ga madaxweynaha ayaan noqonay kadibna halkaas oo dee muddo 7 sano waxay ka dambeeyeen dee sarkaalku waa dalaacaya ka bacdi markaasna waxaan u wareegay ciidamadii caadiga ahayd waxaan ahaa madaxweynaha goobta waxaa laga dhigay taliyaha guutada madaxweynaha goobta Muqdisho kadibna waqtigaas waxay ka dambeeyay jagay badan baa soo qabtay waa la socday hadda ilaa tababarkeygii dambe aan haddana u aaday dalka Mareykanka waan kaga soo baxay kulliyadda Staff College riyada waan Mareykanka kusoo dhammaystay waxay ka dambeeyeen hadda waxaa laga maray qaybta 12aad qaybta 16aad wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga wasiirka howlaha guud wasiir gaashaandhig haddana howlahaas oo dhan baan soo maray bishii April 9keedii saraakiil ka mid ah ciidankii xoogga dalka Soomaaliya waxay isku dayeen afgembigaasi waa dhicisoobay bal maxaa kala socotaa dhacdadaas iyo raggii hogaaminaya ka tagay والله horta waqtigaas waxa waqti adag baa lagu jiray waxa waqtigii dagaalkii 77 laga soo baxay ciidan aagaas balaaran ku jiro dagaal ka soo baxan oo garan kartaa waxa lagu jiray dib u habeen iyo difaac in la galo iyo ciidan hada kala daasano dagaal ka soo baxay hawl adag baa socotay kadibna hada waxa bilowday inqilaabkii 78 markaasna waxaan taliyaha guutada koowaad madaxweynaha goobta Maxamed Sheekh Cismaan Cirrona wuxuu ahaa taliyaha guutada saddexaad ee difaaca cirka waxna dhaxaysay waxay isu dhaween isla aag baan haydaynayla ayaa labada guuto ku yeelan inqilaabkaas waxa inqilaab horta aan xogtiisa lahayn inqilaab si kedis ah u dhacay inqilaab waa la ogaaday dowladda system beelad nabad sugid beelad baaritaan beelad waa kuwa ka horeeyay la ogaaday laakiin inqilaabka waxa inqilaab aan la ogeyn oo si kedis ku yimi salaadun baa la maqlay xabad bilaabatay guutada saddexaad rideeda ka bilaabatay ilaa guuta labaad iyo anagoo guutada madaxweyne ku soo dhacday xabadaas meel ka socdaan cidriis waa la fahmi waayo هذا حبضة حي سعودان با إلى مدة قلبتي إلى 9 ساعة قلنو دقال كاسوا وحبضة لسويدر سنة إذا ما بغن با سوق قلي قلت اللوة تنقيا دين عادكوري حكتي كلية الجالسيات بهدنا ماشي كنت إلا يضنا إذا ما كنتري
adoo inqilaabkaas dee markii dambe oo dowladda dee systemkeeda markaa jiray waxaa loo qabtay markaa maxamed sheekh cismaan lagu eedeeyey allah u naxariisto inuu inqilaabkaa ka dambeeyey isagiina waqtigaas lama hayn gacan laguma hayn laakiin saraakiilkaa la qabtay ninkaasu markaas waa maqnaa oo muxuu ahaa aagga ma joogin ilaa muddo 11 maalmood kadib ayaa waxaa laga soo qabtay aagga Belidogle markii laga soo qabtay muddadaas uu maqnaa anigoo guutada kuwaad jooga ayaa laygu keenay habeenimo isagoo la wado haddii aan wareystan hadda wuxuu yidhi waa u bareeray cad baan ugu bareeray wuxuu yidhi naxdina kama muuqan ana caado ahaa markaan casho u diraya oo aan soo dhaweeyey oo baalkii nin soo daalay oo duur ku jiray macnaha nin ku talagelkiisa ku talagalsan buu ahaa oon yani aan weli waxba ku jirin oo u bareeray hawshaas u bareeray buu ekaa marka nin geesi ahaa oo hawshaas u bareeray adoo calaamo waxaa weye ninkii muddo haddaan casho u diray oo waxba xoogaan nasteen haddee raggii hawshaa lahaa igala wareegay oo ciidankiina uu sii daayimay oo la wareeg aniga toos laygu keenay maayo waxaa wada ciidan buu ahaa militarigaas wadayna haddee nabadsiid ma geena anay soo aadiyeen warkaa ka bacd ciidankana nabadsiidda la wareegay marka runtii inqilaabkaasu haddee baaritaankiisa anugu saraakiil yarar baan ahayn waqtigaas waxaa weeye afartan ka soo wareegatay waqtiga hadda waqtigaas anuu gaashaan la ahaa mijir baan ahaa maxamed sheekh cismaan cirrina wuxuu ahaa corneyl buuxuu ahaa full corneyl saraakiisha oobana iga horreysay buu ahaa ciidanka iga horreysay aniga weyda waxaan maxaa noogu sheegi weysay haddii inqilaab uu jiro daana wuxuu yidhi adugu reer maxamed saad baa ka tirsan tahay aba kuuma sheegin buu yidhi laakiin wuxuu ii dhiibay qoraal iyo saacadiisi iyo qalabkiisa watay buu ii dhiibay iyo reerkii u gee haba alaabtiisi reerkan ugu wareejiyey subaxii dambe aan u geeyey intaasaa isugu kaana dambaysa maxaad ka taqaanay isaga qof ahaan wallaahi haddee raggii iga waaweynaa buu ahaa ciidankan waxaan isku soo gaaray waqtigaas waqti yar baa dagaalkii laga soo baxay baa anigu horta dagaalkii laga soo baxay baa guutada meesha isku baranay guutada lay keenay laakiin aqoon dheeraada oo faahfaahsan runtii raggii la da-da ahaa ama la gurubka ahaa iga badiyey laakiin wuxuu ahaa sarkaal runtii firfircoon oo jiirku waxaan ku wada ciyaari jiray bilyaardiga habeenkiisa u tegi jiray waxaan ku wada sheekeysan jiray nin furfuran oo dabeecad fiican buu ahaa oo aada u furfuran haddee qof bani aadamku sidiisaba inqilaabka waagaas sidaba wixii loo gaay 60kii 70kii 80kii xilligaanu joogno maaha waqtigaas inqilaabka waa badnaa afrika ku badnaa asia ku badnaa inqilaabyada way badnaayeen waqti lasoo maray bay ahaayeen waqtigaas oo waqtiga inqilaabyada la sameynayay laakiin hadda waqtigan hadda la joogo waa yaryahay waxa inqilaabka ku fekeraa maxaa arrinta soo dedejiyey sidee qorshahaasi u fashiray horta warkaas annagu saad u maqasheen baan u maqalay inuu inqilaabku ahaa 12 abriil 12 abriilna waxaa wararku sheegayaan in cabdillaahi yuusuf axmed inqilaabka uu ka mid ahaa allah u naxariisto isaguna markaas wuxuu jiray aagga baydhabo iyo xaggaasuu jiray waxaad moodaa markaa waqtigii loogu talagalay 15 abriil maxamed sheekh cismaan ciiro inuu ka soo hormariyey ayaad moodaa waa si hade annagana loo sheegay weeye noo markaanti kuma dambaabi karo wax factsa oo la hayo maaha laakiin dadkii warkay sheegayeen waxay lahayn cabdillaahi yuusuf baa ku jiray maxamed sheekh cismaanna waa ka soo horumaray isagaa rabay inqilaabka inuu ku guuleysto warkii suuqa la marinayay yaa warkaas ahaa laakiin kolleyba inqilaabku saasuu ku dhacay inqilaab dowladdu og tahay maaha si kediisa ku bilowday ahaa waayo inqilaabyada dowladdu system bay leedahay nabad sugid bay leedahay intelligence bay leedahay lama ogeyn marka taasna waxaa keentay dagaalkii 77 oo lagu mashquulay iyo ciidamada ka soo baxay iyo waxaasaba lagu jeeday nina ma filayn inqilaab baa waqtigan imaanaya cidna isma oran annaga labtana subaxdii waxaan garan weynay xabaddan waxaa ridaya iyo meeshay ka imaan weyso confusion baa dhacay حتى علي سامنتر الله من حيث وتلقى شندقها وهاي سوى وعي
haddee waxaan sheegan garan waaya xabadda dhacaysa xabad baa dhacaysa mahayna wax loo raaco waxay soo wacay janaalkii abuurka aftooje oo isna howlgelinta hoggaanka howlgelinta joogay marka ilaa galabnimadii waxaanu ay kala caddaadeen cid xoogaal u ahayd ma jiro wallaahi anigu ragga lagu eedeeya waa ka mid ahaa markii damaleeyada qaabka ku jirtay waa ka mid ahaa waxaana keenaya soomaalidu sideedaba waxay aaminsantahay wax qabiil la yidhaahdo soomaalida halkaa dhiga waa qabiil qofku hadduu inqilaabi wax samaynayo dee isaga iyo hawsha xosho iyo sida u sameeya isaga ku xiranta laakiin markii la arko qofka waxaa hogaaminaya markii wax taarga looga dhigaya qabiil beel baa looga dhigaya anigu baan raggii la yidhi waa ku jiray oo inqilaabka ku jiray ka mid baan ahaa laakiin xaqiiq ahaan kama mid ahayno cidna wax ima sheegin cidna ima imaan cidna wax ima dhin inqilaab baa sameynaya anigu tale waa ka bixin lahaa hadduu hadaa tale i weydiiyo waxaa laga yaabaa in tale ka baxsho laakiin haddee isagaan baxaba tale i weydiina hawshiisa isagii raggii kaloo la socday ayaa hawshaas ku koobnayd inqilaabka ka bacdi mucaaradka bilowday cabdullaahi yuusuf iyo saraakiil wataa waa fikadeen ururkii SSF iyo SDF baa bilowday Itoobiya la dagaalamay dib loo galay 10 sano ka bacdi dowladdii Soomaaliya iyo Itoobiya heshiis bay galeen in mucaaradadii kala taageerayay albaabadooda la soo xiro isu soo dhawaadaan ciidamadii la kala qaado bal arrintaa ka warra sidii wada hadalaas ku bilowdeen iyo sidii la isu aaminay saas ku dhaceen arrintaas waa xaqiiqo waa jirtay laakiin anigu waxaan aaminsanaa inaysan Itoobiya heshiiska daacad ka ahayn oo ay khiyaanan ku jirtay waayo heshiiska waxaa soo wada galay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha Itoobiya laba dowladood baa heshiis soo wada galay qodobo dheer oo heshiis lagu soo wada galay waxaana hal qodob baa naga khuseeyay ciidamada halkaa qodob wuxuu ahaa kala rarista ciidamada maadaama dagaalkii 77 la galay in ciidamadii oo difaac isugu jira oo qaarkood 2 kilomitir isu jiraan sida 3 kilomitir sida balonbaloo kaleeto iyo sida aagaga qaarkood dhinacaas baalka saylac iyo meelo badan ay fooda saareen qodobkaas wuxuu ahaa in ciidamada la kala durkiyo oo la kala raro ayaa anaga qodobkaas khuseeyay heshiiska kalena wuxuu ahaa mid arrimaha dibadda iyo arrimahaas khuseeya labada dowlad khuseeyo ahaa aniga qodobkaasaa lay wakiishay dowladda dhexe wakiilatay inaan madax ka noqdo guddoomiye guddiga ka noqdo waxaa lay soo diray Cornel Ibrahim Aadan Doolaal oo hoggaanka siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga jooga iyo Maxamed Ibraahim sabaro daqiiqa nin yidhaahdo Cornel ahaa oo isagana markaa joogay amniga wasaaradda arrimaha dibadda labana nin oo qoraalkii wada ayaa aniga magaalada Hargeysa igu yimi qaybta 26aad qoraalkii haddii aan falaaqeynana talana waa wasiirka gaashaandhiggana waa ila soo hadlay maxamed cali soomanta loo naxariisto de hawsha inaan fulino anaga keliya yaana la ka rabay go-aanka la gaaray kadibna 15 abriil May 15 abriil 1988 ayaa shirkii ugu horeysay waxaan ku qabanay lagu qabtay Jigjiga anna waqtigaas aan wareys waxaan ka duulay Hargeysa waxaan u tagnay shirkii Jigjiga ciidankaas waxaa hogaaminayay dhinacooda ciidanka Soomaaliya waxaa dhinacay hogaaminay aniga waxaa ka mid ahaa Cornel Ibrahim Aadan Doolaal waxaa ka mid ahaa Cornel Maxamed Ibraahim sabaro daqiiqa iyo saraakiisha aagga markaas aagga la howlgalka nala socday baa ka mid ahaa dhinacoodana waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga waagaa Mengistu General Masfin Gabrakeel waxaa ka mid ahaa General Abare Abebe oo ahaa taliyaha qaybta bari taliskooda Harar waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo Tadete oo isna ahaa sarkaal Cornel isna howlgelinta ugu qaabilsanaa gaaska qaybta ugu qaabilsanaa saddexaan nin iyo rag la socday ayagana shirka yimi maash haddaan isugu tagnay dood baa la galay doodii markuu horeyta waaba la isku fahmi waayo waxaa la isugu fahmi anaga qodobada halkaa ku qoran loo soo diray waa ku jireen jabadu waa ku jireen laga hadlo iyagu waa diideen laga hadlo jabadaha in laga hadlo waa diidanaya
marka waxaa la gaaray inaan nahraanoon waa ka tegaynaa marka shirka ha burburo annaga waxaa noo soo wakiil sheekh inaan nidaamkaa raacno annaga amar baan ku socon ciidan baan nahay inaan nidaamkaa raacno ilaa markii dambe xoogaa ay soo daacadii oon ka haddana soo dabceen oo ay ogolaadeen in hawshii la bilaabo after 3 maalmood kadib waxaanu shirkii labaad ku qabanay magaalada Boorama halkaas inay yimaadeen halkaasaanu ka bilowday inaan markaa ciidamadii kala raridoodii in la kala durkiyo annagoo taliska anaga iyo ranka taliyaha guddiga hogaamintu meeshaan joognay laakiin saraakiisha hawsha qaban lahayd baa aadaysay oo ciidamada kala durkinaysay oo aagaga maabkii maab bay wateen kaartadaas wataan maabkaasay kusoo qori jireen inta kilomitir ay kala durkeen iyo difaacooda raboodkaasay noo keeni jireen kii labaadna waxaanu ku qabanay labaadna markaan Boorama ka tagnay waxaa lagu qabtay magaalada la yiraahdo Galaadi haddii aan tagnayna sidoo kaleeto hawshii ciidamada kala durkiyey maanta waxaa ugu daray waxaa la sheegay saraakiil SSDF ah oo meesha joogtay jaranka shirkooyinka waxaan ku yidhi raggaas aan arkay ragga soo ragga meel baaba lagu xirtay oo waxaa la diidayaaba inay aan sarayno yaaba la diidayo waxay xiran yihiin waxaa inay aragnaaba la diiday waxaa ninkan waa salaamayaa aan salaano aan wax kale kama warran salaano waa diideen galaadi way والله رجع باليش لك ما مكان رجع باليش رجع سراكيل مش كنت تالي مركا أدو كاد كتسقني كبعنا شركي كحيان كوكمنا بيدابا ومر بحمل بلتجي أبتر بيدابا دنا حنتني ماشي عندنا عن أورومادا أروحهم حالي على بيدابا كت بيدابا بحنا لو سريع مكان كتسقني حنتني بيدابا كبعنا حوي قدي راح كسو حربي هذا هوشة from سيلع إلى دولو أنت أجاسها waxay ku xiran tahay aaga ay ku xiran tahay qaar baa 15 kilomitir qaar baa 7 kala durka xagoonta ciidanka waxa loo fiiriyaa meesha difaacooda uu ku haboon yahay inay galaan ama buur haday tahay ama dhul banaan haday tahay أو كواكل دوغناين لكن ما شو وير نبضيت بوها مركب واحد لجري الشيء نبضيت عشان 10 كيلومتر أيوة عشان 10 كيلومتر بأوير واحد ما كلا كدوركية مركب إلى سير إلى دولو أنت عشان كود جري إن العلم كدوركية واجب كان رد لنوعها إن علم على كدوركية لكارو لكن إيجو حن درين سنة إن سنة هالي كاهن وأي خيانة يكون شرتي شيء كه وأي واحد كدم مية هدي وقتها واحد دعيت marka khiyaanadu maxay sameeyeen khiyaanada waxay soo khiyaanada waxa keentay inay hargeysa soo weeraraan oo burca soo weeraraan khiyaanada ka mid ah hadii heshiiskiin la fuliyo Soomaa marka taa intaasaan ku keenay heshiisku waxa heshiisdeed buu ahaa garab siyaasadeed buu lahaa maxaa ka socda qodobada kale oo heshiiska lagu galay والله قربك عيدنك أي خيانة أي كتير تساوي والله أنا وحنا نخش قربك عيدنك لكن أرمها كسياسة ده أرمها دبدا قبل سنة وأنا لو صادرين أنا جا واحد أنا لو صادرين كله تلاقي شو الله سبحانه وتعالى قال كنا نخصيه لكن واحد دبلوماسية ده وسياسة ده اللي بدو وحور بحنا كمان هنا لو صادرين وراك ما بعنا عارك بعنا أنت كنا نخصيه يا الله سبحانه saraakiisha loo soo dhibay xamar ka timo heshiiska markaad galeysay Itoobiya oo ciidamada kala qaadiyay dhinaca Soomaaliya waxay hostigareynaysaa mucaarad Itoobiya oo ay kamid tahay nimankii Eritreankii iyo Tigreygii iyo Oromadii iyo idaacada ku lahaa iyo xagaa soo dagaalamay SDF sanadba xaga ay u joogeen maxaa ka samaysan walaha horta Eritrea Oromadu horta awood taas oo macno weyn kuma lahayn laakiin Eritrea macno Soomaaliya ku lahayd markaas Eritrea markaa dagaal kuma jiro waxa ku jirtay diyaar garow in Soomaaliya waxa u timeen hub la siiyo Soomaaliya markaas waxa weeye waqooyi baan hubkii ugu dambeeyay ay dalka ku qabsadeen ba waxaan uga rabay berber looga rabay dawladda magaceeda lagu keeno waa loo soo gaday China looga soo gaday marka dagaalkaas ay ku qabsadeen ba nimankan Tigreeg iyo Eritreankan labada isku jireen markaas yaana Eritrea kama wada socdeen Eritrea Tigreeg
marka labadaas waxaa caawini jiray dowladdii dhexe waxay ku caawinaysay in Mengistu meesha Mengistu cadow bunaa in meesha laga saaro tayadii waa lagu guulaysan meesha laga saaro jabhadaas waa la hubeeyey waa la diyaariyey waa la tababaray waa la diyaariyey hubna waa la siiyey dalkina waa la wareegay waa qabsada marka dawas khiyaanteen idinkuna nimankii baa hubeen ma khiyaanada horeysay khiyaanada ana tan khiyaano ma waajibkana aan gudanay ayaa khiyaanada ku horeey sidee ku yimid mechanismka is-aaminka ah in dal xabadii isugu jirtay oo jabhada mucaarad ka soo kala jeedeen ay heshiiska degdeg ka garan sidee isku aaminteen wallahi ana horta saakiil waxaan ahay saakiil amarka booliisaan ahay dowladda dhexe hawshaas u tiilay oo heshiiska gashay laakiin anoo saakiil amarka qaato booliisaan ahay shaqo kuma lahayn waxay galay heshiiska siyaasadeed dowladda u tiilay taas marka khiyaano qaran baan ku sheegnay daacad ka ahayn wax ku talooyinka qaadeen baa markaanti ka Mengistu qaaday marka